kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaantiinba daawadayaal halkani waa telefishinka madaxa bannaan ee Raya TV haatana waxaynu soo gaadhnay mar kale iyo waqtiyadii aad inooga barateen inaan idiin soo tabinno barnaamijka raadraac oo toddobaadkiiba aad hal mar ka daawataan shaashada telefishinka madaxa bannaan ee Raya TV barnaamijkeena toddobaadkani ayaa waxaynu ku raadraacaynaa dhismaha jidka u dhaxeeya magaalooyinka Boorame iyo Lawyacaddo kaasi oo muddooyinkii ugu dambeeyay dardartiisa ay waday hay'adda dhinaca horumarinta jidadka awdal iyo salal ee Asarda jidkani ayaa waxa maanta soo booqday wafdi heer caalami ah oo ka socda Banka Horumarinta Afrika iyo wafdi ka socday wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta dhinaca jidadka ee Somaliland mas'uuliyiin kala duwan culimaaddin salaadiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada oo ku soo dhaweeyay jidkaasi ayaa banka caalamiga ah waxay sheegeen in iyagu maalgelin doonaan jidkani hase ahaatee sanadkan gudihiisa lagu jiri doono daraasaadka la xiriira qiimeynta kharashaadka ku baxaya iyo qaabka loo dhisi doono qaybaha kala duwan ee bulshada iyo walibana ururada bulshada rayidka ah ee magaalada Boorama oo si weyn u soo dhaweeyay ayaa waxa halkani kala hadlay madaxda Banka Afrika dhinaca kalena mas'uulka ugu sareeya wafdiga ka socda Banka Horumarinta Afrika ayaa isaguna ka hadlay ahmiyadda uu leeyahay jidkan iyo qaabka ay mashruucani u maareyn doonaan bankigaasi waa tahay daawadayaal intaasina waxaynu ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka raadraac oo aynu maanta ku eegaynay wafdi caalami ah oo ka socda Banka Horumarinta Afrika oo yimiday magaalada Boorama kuwaasi oo soo kormeeray jidka u dhaxeeya Boorama iyo Lawyacaddo kaasi oo ay gacanta ku hayaan hay'adda horumarinta dhinaca jidadka awdal iyo salal ee marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaan Asarda waxaan noo sharafa inaad nagu soo ziyaarataan wadadii ay community-ga awdal iyo Asarda ay dhiseen waad aragtaan halkaynu ka soo bilownay ilaa iyo halka ay maanta ay marayso marka erayadeedii hore waxa ku jiray waxaad u timaadeen bulsho aad iyo aad haraad ugu qabta wado intaasoo sanadoodna qayrkood ka hadhay wadadii laamiga Kismaayo ka soo bilaabantay halkay ku dhamaatay waa halkan idinku soo dhaweynay bay ahayd marka maanta ayaa noo kow ah inuu adduunka ka mid noqono waayo wadadaasi haddii ilaahay ay noo suurtageliyo dhamaato waxay ku xidhmaysaa intaasoo dalbay ku xidhmaysaa marka rajadayadu waxa weeye oo ina ahaydna inuu maalin uun adduunka ka mid noqono waa dhul kala wada googo'an tuulo u gurman kartaa ma jirto marka waa ummad u haraadan squarely infrastructure ama wadooyin u haraadan khayraad badan baa yaala lagamada faa'iideysto isma gaadhaan hadday tahay kalluun hadday tahay macdan kale hadday tahay beer waxa la wax la isdhaafsadaa gobolka ma jirto tuulaba tuulay ka xidhan tahay taasna marka waxa weeye waxay ku tusaysaa waxa maqan wixii loo oran jiray access roads ayaa maqan marka bulshadu sida ugu haraadan tahay un bay ka turjubaanaysaa wado alxamdulilah rabbil caalamiin waxa ilaahay mahadiya maanta in dadkii hay'adihii ugu qiimaha badnaa oo ay wakiil ka yihiin African Development Bank ay nala socdaan isagoo hogaaminaya wasiirka iyo maareeyo waana wax aad ilaahay loogu mahadnaqo in mataqaanaa loo soo jeestay horumarkan waxaan mahadnaq markasta siinaynaa ilaahay subxaanahu wa ta'aala thumma waxaan siinaynaa madaxweyne Siilayo oo dhagaxa dhigay dariiqa iyo madaxweyne Muuse ballan qaaday inuu halka dhisi doono mas'uuliyiintii ka socotay dawladda oo maanta in la ordaya inta ordaya shaqaynaya abaal baan ugu haynaa wasaaradda jidadka Cabdullaahi Abukar oo runtii mar kastoo loo tago aanan waxba hakran waxba qabta waan ilaahay mahadi weeyaan waxaan rajeynayaa dhulka buuraleyda ah ee meel loo maro iyo dariiq loo maro aan lahayn inuu soo furto waxa laga yaabaa degmooyinka marka laga cabirayo tiradooda iyo la sheegayo waxa weeye aqlabiyada gobolka awdal degmooyin ku yaala way qufulay yihiin qufulkan waxa ugu aan qadir lahayo sameeyska dhulka oo abuuralay ah waa dhulka ugu badan u baahnaan doona dariiqiyo hadda iyo kadib marka ciidina kaalmaysan oo mahadnaqaynaa ciidii ka shaqeysan oo mahadnaqaynaa ciidii waxna tartan oo mahadnaqaynaa baahi baan qabnaa baahida maanta hadda noogu timaadeenna waa mahad ilaahay weeyaan annaga xagga iyagana waa community waxaan isku tiirsaday shaqaynaya waxaan jecelnahay inaanu daalin hadii ilaahay raado هذه advance domain. I welcome our colleagues from the African Development Bank on behalf of the community. I'm president of Amud University, and the university itself has a great stake
in the building of roads in this country, simply because our customers come from everywhere in the Horn of Africa, from Djibouti, from Ethiopia, from the coastal areas. And this is the divide between accessible and non-accessible roads. Even farmers, either here and fishermen on the coast, they don't have any means to bring their products to the consumers, who are generally the larger populations are over here. So they don't have anything to, any means to bring over here. Now that the African Development Bank is here, development is here. So we thank you very much for سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. marka ugu horeysa waxaan soo dhaweynaa wafdiga ballaaran ee uu hogaaminayo wasiirka gaadiidka iyo maareeyaha jidadka Somaliland ee ka kooban aqoon-yahanada iyo African Development Bank rag badan oo maaragtay madaxa aqoon-yahana ah waxaan idin ku soo dhawaada anagoo ku hadlana magacii community-ga gobolka on behalf of the community of Awdal and Sahel region. We have got the opportunity to say to you welcome here in Boram. Haddaan intaa ku dhaafo waxaa kaloo aan aad iyo aad ugu mahadnaqanaa in maanta loo socdo oo socodkoogan uu yahay arrintii jidkii isku xidhayey Lowyacado iyo Boram oo run ahaantii ahaa sida loo sheegay jid ay gobolladan galbeedku ay aad iyo aad ugu oomanaayeen muddo dheerna wuxuu ahaa riyo xilmi waan ugu riyo jirnay. That was a dream for a long time. We are glad to see that our dreams became real today. We thank you. We thank to the African Development Bank and the World Bank and everybody who gets to bring here this road from Lowyacado to here. We thank you all. aad iyo aad baan soo dhaweynaa waxaan leenahay aad baan ugu faraxsannahay qoladii asardaa iyaguna halkaas soo gaarsiisayna aad iyo aad baan ugu mahadnaqanaa kama maqna iyaguna oo waa kuwa halkaa maanta keenay waxaan leenahay anagoo ku hadlana magacii community-ga aad baan idin soo dhaweynaa dariiqaasi waan u baahnayn waa wadnihii maanta waxaanu isku xidhanaa Djibouti iyo Ethiopia dabeedna waxaanu noqonnay waddan ka tirsan Afrika oo tirsan markii hore waanu xidhnayn laga bilaabo maanta waxaan leenahay waxaan ku xidhannay Afrika sida halkaa ilaa South Africa dhan walba waan ku xidhannay maanta marka dariiqa loo sameeyo aad iyo aad baan ugu mahadnaqanaa madasha khayrka badan isugu keenay marka dhammaan khiyaarta halkan isugu timiday qaybta doontaba ahaatee siiba wafdigan qiimaha badan leh ee wasiirku hogaaminayo wadooyinku iyo ma garanaysaa wafdiga qiimaha badan leh maanta gurmadka inoogu yimidba walbaan ka socdaba dhammaantii waxaan leeyahay salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh marka xigta saddex ereyo maan odhanaya waxa weeye waxaan filayaa inaad madaxweyne qaranka soo aragteen Muuse Biixi Cabdi waxaan filayaa inaad soo aragteen madaxweyne ku-xigeenkii Cabdiraxmaan waxaan filayaa maanta inuu wasiirkii socdo wadooyinku waxaan filayaa inuu Cismaan oo wadooyinka u qaabilsan uu socdo waxaan arkaysaa madaxweyne weyntii iyo dadkii waad arkaysaa sida loo heelan yahay waxaynu tusaysaa maanta arrinka iyagu in aan wax noo maqani aanay jirin farxad haddii maanta halkaan joogno iyo rajaba oonu leenahay maanta Boorama ama Somaliland waxa isku xidhmaysa waa Somaliland waxa isku xidhmaysa iyo Djibouti isku xidhmaysa ma Booramuun Somaliland iyo Djibouti isku xidhmaysa runtii wax farxad noo maqan inay jirin baan filayaa waxaad ka arkaysaan hadday madaxweyne ahayd hadday wasiir ahayd hadday sheekh ahayd hadday professor ahayd cid walba ahaydba orodkay guclaan naga dhacay wada arkaysaan waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay imashadiina waxaan aad iyo soo dhaweynaynaa imashadiina waxaan garab iyo gaashaan bay inila garab galeynaa hooyo hilba way inila garab galeynaa habeen iyo maalinba way naga soconaynaa waxaan rajaynaynaa duco badan baanu ridaynaa wax badan baa la naga ciddii maanta wax qabsataa way naga helaysaa cid magacii doontaba sidatee umuurtay doontaba ha haysatee maanta waa la naga helayaa ana og waa la naga helayaa waxaan rajaynayaa hamada iyo hawsha inaad ilaahay hirgelisaan hawsha iyadaana waxaan ni cadaynaynaa in aanu kabaha u soo xiro ugu xidhanay oo nu dabacnay isagoo madaxweynuhu hogaaminayo inuu halkaa iyo Djibouti isku qaadno itaalkaygan waad ogtay maxay gulnataygan guladka habartaan ogide guladkaygan waad aragtaan laakiin waan ku haboon inaan tagno haddii samaanta caalami ahaan nagu soo gurmateen ama walbaan ahaan nagu soo gurmateen ama Afrika walbaan ahaan nagu soo gurmateen wala maasha aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxa weeyaan sidaan buurkaan u soo xidhnay baan naga dhaban
sheekh cabdi iyo maareeyihii asarda oo isaguna joogay Yaasiin oo warbixintii bixiyay dhammaan horumarinta Afrika banka Afrika oo socdo maanta socdo aad baan ugu mahadnaqaynaa wadadan maanta aan joognaa wadadii himiladii odayaashii hore kolkii Ingiriisku soo galay 1886 halkii ay sahamiyeen ee ay iska xuqabsa halkay ka bilaabantay oo halka aan joogno weeyay halka magaalada dhanka inaga xigtay ee Bonn inta kale dawladda Ingiriiska ayaa soo jeexday laakiin halka kulkay joogto Ingiriisku uu awood uma hayno uu yiri wada halka ka baxdo baabuur ay ka baxdo odayadii joogay ee gobolkan u dhashay baa bilaabay ereyga la yiraahdo iska xuqabso kolka ereyga ka horeeyay wuxuu ahaa markii dambe la bedelay hays caawiso Soomaaliya hays caawiso yaa loo jiray markii dambe iska xuqabso waxaana ka toosan labada hays caawisada ka toosan iska xuqabsada inay wax ku yar jiraan baad moodaayo leefaha ka soo gashay ay ku jirto wadada waxay ahayd himilada odayadu waxay ahayd ma ahayn Boorama oo kaliya ma ahayn inay isku xirantay Zaylac oo kolka camirnayd iyo ilaa Berbera ilaa Ceergaaba inay isku xirantay Somaliland waxay ku talaabsatay wadooyinka lagu talaabsado shacbiga u sarakacay oo dhan gobolka Awdal baa sabab u ahaa waxa ugu horeeyay hay'adii asarda intii dawladii hore oo dhan waxa loo oran jiray dawlad batrool leh ama dawlad batrool leh ay caawiso mooyaan cid wada samaysan karta ma jirta ayaa loo oran jiray hay'adda asarda kolkay timidday bay bilowday iyadu 8 kiiloomitir ee ugu horeeyay aad baan ugu amaanaynaa dawladii Soomaaliya sidoo uga qayb qaatay hadda madaxweynaha imka jooga Muuse Nasir de ballan gaar kaamboyba uu ku galay inuu isku xiro Ceergaabe iyo Djibouti ay isku xidhmay kaamboygii uu ku galay baaba isaga horta laga sugaya wadadaasi waa wadada xayawiga ah ee u ah Afrika isku xidhaysa Afrika maanta isku wada xidhaysa marka iyada oo kulay qorshaheeda ay warbixinteeda ay hayaan maareeyaha iyo ahayaan عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan halkan u hadlaynaa warbixin yar aan bixiyo saad la wada socotaanba asarda wadada ay wado mudooyinka u dambeysayba contribution xooga oo ay ama community ay ka heshay ma jirto cidda wadadan wadaay maareeyaheedii Yaasiin halka jooga horta waa wasiirka ayaa dhaqaalaha ugu badan imka soo bixiya oo wadadaas halka ka soo qaaday ilaa imka halka lagu baneeyay ilaa intaasi waa xukuumadda uu garwadinka ka yahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo Saylici iyo wasiirkiisa ayaa dhaqaalaha ugu badan ku bixiyay ilaa imika la daba taagan oo ilaa saakadaasi u dambeysay waxeediyo shidaalka ku socoto dhanba isaga absiye wasiir waxaan ku leeyahay anoo ku hadlayo afkii community-ga salaadiintii professoradii la wada leeyahay waxaan ku leeyahay shukran ala waajib shukran baan ku leeyahay qofka balaadika ay noo mahadnaqay waa waajib mahadnaqaasaan soo kacayna ku mahadnaqno sida nool garab taagantay maanta waxaad wadaay waftigii Africa Development Bank oo aad wado oo in isku xiri doona wadadan ilaa Djibouti ilaa Jigjiga waa wada saddex dal isku xiraysa intaasaan ka cali wasiir taaleeg u yimaado African Development Bank waxaan u nimid waxa weeyaan bilowno ugu horeyn daraasadii lagu sameyn lahaa wadadan from Boorama Fardaha ilaa loo yaado kadibna waxa ku xigi doona financing-kii wadadii dhismaheedii oo taasoo qaadan doonta ilaa 8 bilood ilaa 12 bilood inta daraasadda la bilaabayo la dhamaynayo kadibna ay ku xigi doonto wadadii bilowgeedii marka sharaf weyn bay tahay oqaasha odayaasha gudoomiyaha iyo suldaanada sida sharafta aad loogu soo dhaweyseen ama dalkaba loogu soo dhaweeyay waxaan lagu arag weeyay Afrikada kale taasna I think my colleagues are very, very grateful the way we have been welcomed in the country, in Somaliland. And we hope that we'll integrate and connect not only Somaliland to Djibouti, but also to Ethiopia. And this is the first of many other events and road transactions that the bank will finance. marka koobaad ilaahay waa mahadle mar labaad waxaan mahad u celinayaa wasiirka howlaha guud iyo gaadiidka Bank Development Africa ee horumarinta iyo dhammaan salaadiinta tacliimiinta ururka asarda ee wadada wada waxaan ugu salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan kadib Bank Africa Development waan soo dhaweynayaa soo dhawaadayaan leeyahay gobolka Awdal run ahaantii gobolkan Awdal waa gobolkii laga bilaabay iska xuquuqsada 22 kiiloomitir ee laga soo sameeyay Dile iyo Boorama dawladda iyo dadkuba way ka qayb galeen dadweynaha waxaa leh hal loo diyaar garoobo wadada dheer ee isku xiraysa Djibouti iyo Boorama oo aad u dheer ilaahay waxaan ka baryaynaa inay noo suurta gasho Pan African Development-kuna hawsha inoo geliyo nabadgelyada
iyo inaan ka qayb qaadano oo mar walba u diyaargarowno ayaa laynooga baahan yahay madaxda gobolka awdal mudanta iyo salaadiinta waftiga ka socda bangiga horumarinta Afrika dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waxaan jeclahay inaan saddex qodob aan ka hadlo mid waa mahadnaq aan idin mahadnaqayo dhammaan madaxda iyo qoorweynta gobolka awdal sida sharafta leh ee maanta noo soo dhaweyseen midna waxaan jeclahay inaan kulli waa laga hadlay mashruucan laakiin inaan idinku baraarujiyo siyaasadda guud ee aanu qaadanay haddaan nahay xukuumadda iyo xisbiga kulmiye marka laga tago adeega asaasiga sida caafimaadka iyo waxbarashada dawladdu waxay u aragtay inay tahay mudnaan in la siiyo saddex shay shayga koowaad waxa weeyaan waa infrastructure amba waa kaabayaasha dhaqaalaha shayga labaad waxa weeyaan waxa loo yaqaano productionka sida xoolaha beeraha iyo kalluumaysiga qodobka saddexaadna waxa weeyaan waxa loo yaqaan wash amba waxa weey biyaha iyo sanitationka biyaha marka saddexdaas sector waxa inoo mudnaan inaga 5 sano soo socda runtii wadadan waxa anaga noogu jirtay mudnaanta labaad marka laga tago wadada ceergaabo laakiin maanta waxa nasiib loo ah orolmeeno waxa weey wadadaalkayga laakiin waa nasiib wax noo ah inay nooga soo horumartay waqtiga qorshuhu noo ahaa annagoo ka helay laga helay dhaqaale bangiga horumarinta Afrika aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan ku khasbannahay maadaama sheeguna ha balanqaadkaygii cid kastoo nagala qayb qaadaysa inaan u mahadnaqno waxaan doonayaa inaan u mahadnaqo sida uu sheegay Xuseen waxay soo daalan xaqiiqo raadin si dhaqsaaba loo bilaabi doono daraasadii waddo 12 bilood gudahoodana waxaan jeclahay insha Allah inay wadadaasi si rasmi ah ugu bilaabanto waxaan jeclahay inaan u mahadnaqo asarda runtii waxay tiraahdaa carabtu la shukran ala waajibak أنا واحد سلا يزين يتيم كيسة مركو هرب شغال أنا وقارن مركو هرب واحد صارنين أيين لودين إن هو أركان ما هي واحد نصينا إنه إن لو كتر إنه حيل يجوا شبابنا صارن بيدين على ده هين يجان شعر إنه ما هنقو أدي أنا لو ما هنقو والله بقول ده ما ينشعر وحويه فرنسي وحرج الله ينقو وحن أجنه هاي مركو الله شو بالوعد كلا جه الله يو خرمر وضعه هرية متشر وحنا بغير إنه وضد مقالة دون شيء عرقاو وقفku ku tagi jiray $60 maanta wuxuu ku tagaa $15 waxa kale community-ga ka timaaday dhaxgalka bulshada bariga hore waxa ka soo bixi jiray weegi ilaa 10 qof 20 qof maanta daily ilaa 100 qof baa soo gala kana baxa marka waxaan aaminsanahay wadooyinku inay yihiin shayga koobaad horumarka Chinese-kuna waxay yiraahdaan horumarku wuxuu ka bilaabmaa wado wuxuuna ku dhamaadaa wado marka insha Allah priority inaga noo tahay inaan wadooyinka horumarino runtii Soomaaliland hawsha sugaysa hawl yar maaha waa 9,938 kilomitir ayaa la yiraahdaa xuduudda Soomaaliland waxa loo yaqaano road network-gu waxa waa 9,938 kilomitir waxay noo dhisan hal imika mintan qiyaasayna 10% insha Allah targetkaygu waxa weeyaan haddaan 20% gaarno waxaan jecelahay wax weyn weeyaan marka aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa barnaamijka raadraaca toddobaadkan intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa tan iyo intaynu dib u kulmi doono barnaamijkan la mid ah toddobaadka dambe inta ka horeysa idil ahaantiinba waxaan idinku sii dhaafaynaa sidaas iyo kulanti dambe oo xiiso leh